بسم الله الرحمن الرحيم. Asperger معناه وحويان projeter un liquide en forme de pluie sur quelqu'un ou quelque chose. waa ku shaydhis, ku daadis, ku buufin sida cadarka oo kale marka la isku buufiyo amba biyo marka dhulka lagu rusho amba marka qof biyo lagu shaydhiyo marka la daweynayo kale matalan sida dadka dabiibo oo kale biyo dadka ku shaydhiyaan waxa la yiraahdaa asperger. verbe asperger macnaheedu waa sawiya. Exemple, tusaale wuxuu yiri il faudra asperger le sol afin de passer les coups de balai. waa ina dhulka la qooyo oo la radiyo biyo lagu shaydhiyo intaana la fiiqin. il faudra waa ina asperger lagu rusho oo lagu shaydhiyo le sol dhulka biyo ayaa lagu shaydhanayaa waa la rushayaa oo avant de passer les coups de balai intaana la fiiqin say siigtu u kicin waa ina dhulka horta la rusho. marka asperger waa rushid, waa ku daadis, ku buufin. Exemple kale wuxuu yiri il nous a aspergé wuxuu nagu buufiyay des parfums cadar buu noo mariyay. marka cadarka la marsana waxa la yiraahdaa asperger. il nous a aspergé wuxuu noo mariyay oo nagu buufiyay des parfums cadar buu nagu buufiyay. كلمة كلا لبعض وحويان aspersion. Aspersion c'est le nom des verbes asperger و verbe asperger نوعي وين. marka aspersion معناه وحويان action d'asperger. tusaale wuxuu yiri baptême par aspersion. baptême waxa loo yaqaanaa diinta gaalada kristanka qofku markuu soo galo diinta waxa loo sameeyaa waxa la yiraahdaa baptême. anaga shahaadada qofka loo qabtaa islaamka laakiin iyaka waxa loo qabtaa qofka waxa la yiraahdo baptême. baptême kaasi waa qofkii oo diinta la gelinayo marka noocyal badan buu leeyahay. halkan waxaan haysanaa baptême par aspersion waxay ka dhigan tahay waa ku qof markuu soo galo diinta kristanka biyaha lagu rusho odaygii wadaadka kaniisada loo geynayaa marka waxbuu akhrinayaa biyana uu ku rushayaa qofkii saabo shax wajigu kaga daadanaya. waxay ka duwan tahay laga yiri baptême par immersion to qofka la geliyo biyaha. mid kale waxa jirta qofku markuu soo galay diinta kristanka la qaado webi baa la dhex gelinayaa amba biyo lagu muqorayaa amba biyo meeyela lagu oranayaa dhex gal sida badda uu ismuqorayaa. taasina waa baptême par immersion wala. laakiin anako kale waxaan haysanaa waa baptême par aspersion waa tii qofka biyaha lagu rushay. aspersion marka waa mooga waa verbe asperger ka timiday waa rushista weey. verbe kale asana waxa weeyaan assaisonner. assaisonner Soomaali ahaan macnaheedu waxa weeyaan udgoonayn, ku macaaneyn, ku maaragtay ku dandanaanayn sida cuntada kale marka wax lagu dadarayo lagu udgooninayo lagu macaaninayo. waxa lagu macneeyay marka halkan mettre des ingrédients pour relever le goût. nacam waxa ka dhigantahay waa wax lagu dhaxdaray cuntooyinkii baa lagu dadaray ingrédients-yadii maxaa loo sameeyaa saa pour relever le goût si dhadhanku u fiicnaado. tusaale wuxuu yiri marka assaisonner avec sucre en poudre. war waxaad ku dartiin ku macaaneysiin sonkorta budada. sonkorta budada budada ku dareeburi si macaankeegu uu soo kaco waxan. Exemple kale wuxuu yiri assaisonner la sauce. war sauce-ka udgooneeya oo wax udgooneeya ku dara. kelmadda kale aysan waxa weeyaan assaisonnement. assaisonnement waa verbe assaisonner en aragnay movies waxay ka dhigan tahay ce qui sert à assaisonner waa waxa wax udgoonee ee dhanaanaya ee loogu macaaneeyo weeyaan. tusaale wuxuu yiri le sel la milixdu le piment qanjidu le vinaigre khalku son waxa weeyaan des assaisonnements waa waxyaabo wax lagu udgooneeyo ee lagu macaaneeyo ee lagu dhanaanayo weeyaan ayay ka mid yihiin. milixdu waxba lagu dhanaanayaa, le piment qanjida waxba lagu udgooneeyaa lagu macaaneeyaa, le vinaigre khalko kala waa sida waxaas oo dhan waxay yihiin ce sont des waxa weeyaan assaisonnements waxyaabay udgoonka iyo dhanaanka iyo macaanka weeyaan. verbe-gan kale asana shanaad waxa weeyaan assécher. assécher waa enlever l'eau l'humidité waa engejis wixii oo laga engejiyo oo laga wixii qoyanaa ama biyo ku daateen oo laga engejiyo. Exemple wuxuu yiri assécher un terrain marécageux. engejiya meeshan teeraankan ama meeshan biyuhu fadhiyaan ee qoyan engejiya oo ha engegto. marka assécher waa engejis la engejinayo wax qoyanaa ama wax biyo ku daateen. assécher engejiya
un terrain terrain marécageux biyo fadhiyaan oo biyo yeelaan engejigu kelmadda kale lixaad waxa weeyaan assèchement assèchement waxa weeyaan waa isla verbigii assécher moogiisii waa action d'assécher example wuxuu yidhi l'assèchement d'un cours d'eau engejista la engejinayo meelay biyo fadhiyaan assèchement waa engejis la engejinayo d'un cours d'eau meel ay biyo fadhiyaan kelmaddan kale ama verbigan kale haysano waa septième tii toddobaad weeyaan wuxuu yidhi asséner asséner waa donner un coup violent donner un coup violent asséner waxa weeyaan waa qofka oo wax weyn lagu dhifto oo wax gagabinaya amba tawkhinaya lagu dhifto waa donner waxa lagu dhifanayaa un coup violent jug baa la gaarsiinaya macna kale leedahay oo haddana waxay ka dhigan tahay dire avec brutalité waa si xun u oro oo qofkii oo hadal kulul amba jawaab kulul ka iraada ayaa la yiraahdaa asséner example wuxuu yiri il lui a asséné wuxuu ku jiiday un coup ayuu ku dhiftay siqlaateed madaxuu kaga dhiftay xabad juga ayuu madaxa kaga dhiftay il lui a asséné wuxuu gaarsiiyey oo uu ku dhiftay un coup jug buu gaarsiiyey siqlaateed madaxuu ka gaarsiiyey example wuxuu yiri asséner une réplique jawaab xun oo adag buu u celiyay ama asséner une vérité ama runtii buu intaha ka saaray saano kuwa orano jawaab kulul buu siiyay ama runtii buu intaha ka saarsan orano weeyaan oo kale marka asséner wuxuu taabsiyay uu ku celiyay une réplique jawaab dir ama une vérité ama runtii buu ka saaray kelmadda kale sideedaad waxa weeyaan assentiment assentiment waa acte par lequel on acquiesce waa ogolaansho assentiment waxa la yiraahdaa ogolaansho aqbalis waafiqis bay ka dhigan tahay synonymkeegu waa accord iyo consentement example wuxuu yiri réviser wuxuu iska diiday réviser wuxuu iska diiday son assentiment inuu ogolaado à une décision go'aankan ogolaashiisii iska diiday waa matalan waa arin la soo diyaariyay ninkii chefka looga ama directorkii meesha xukumayay bal dacwadan ama codsigan ka waran balay uu iska diiday isagu kuma raacin laakiin dadkii kale oo dhan way soo ogolaadeen ugu dambeyntii isaga diiday marka muxuu sameeyay reviser wuxuu diiday son assentiment ogolaanshiisii buu u diiday à une décision go'aan la gaaray ninkaaba ka soo horjeesto diiday way ka dhigantaa assémenter waxay ka dhigantahay qui a prêté serment avant d'exercer une fonction waa qof daarsan sida ragga maxkamaddu way daarsan yihiin shaqaalaha caafimaadku way daarsan yihiin dokteerada kaalkaaliyaasha anfarmiyada dadkaas oo dhan waa dad la dhaariyo dadka ciidanka qaranka u shaqeynaya way daarsan yihiin madaxweynayaashu way daarsan yihiin shaqooyin caynkaas waxa jira dadka la dhaariyo marka assémenter waxay ka dhigan tahay daarsan oo la dhaariyay example wuxuu yiri fonctionnaire qof shaqaale oo dawladda u shaqeeya fonctionnaire ama traducteur nin turjumaana oo assémenter oo daarsan la dhaariyay tusaale kale wuxuu yiri témoin assémenter nin markhaatiya oo la dhaariyay markhaatiyaashu markay maxkamadda imanayaan waa la dhaariyaa kitaabkii ama waxba loo hordhigaa ama gaalba waddanka noqdo ama islaan noqdo waxba jira lagu dhaariyo qofka waxa la oranayaa ku dhaaro waxa aad sheegaysid inay run tahay oo u joogto Ilaahay ku oge waayo qofkan wuxuu sheegayo haday been noqoto qof dhanba sababtiisa xaqiisa ku waaya ama qofba sababtiisa ku galaya jeel ama dhibaato ku mutaysanay marka waa la dhaariyaa qofka markhaati baan yahay waa la dhaariyaa donc muxuu yiri témoin assémenter nin markhaati oo la dhaariyay donc assémenter macnaheedu waa daarsan oo la dhaariyay bay ka dhiganta kelmadan kale tobnaada isna xaween aswafi waxay ka dhigantahay ki aswafe oo haraadan qofka haraadan baa la radaa ee haraadku hayo ayaa la radaa aswafi example wuxuu yiri les enfants ciyalku sont aswafi way haraadan yihiin haraad baa haya example